waxa kamida wax akhriska waxa ku jecelaysiinay waxaad soo aqriday inaad dadka gaarsiiso iyadoo faa'iidooyin badan laga helo oo ay kamid tahay wixii aad soo aqriday inaad maskaxdaadii u dego oo markaad wixii soo aqriday bulshada u gudbiso qof mar labaad wixii revision ku sameeyaa tahay oo wixii dib u laba aqriyay saas darteed faa'iido aad ugu jirtay dhanka kalena dadkii aad soo gudbisay ayaga laftooda faa'iido ugu jirto oo dadkii way faa'iideysanayaan wixii aad soo bandhigtayna waa ay ka faa'iideysanayaan saas darteed wax walba oo wanaagsan oo aqrido waxa fiican si uu adigana ku dego inaad bulshadaadii ama asxaabtaadii ama dadkii reerkaaga ahaa ama ciyaalkaagii inaad la wadaagto si aad wixii adigana faa'iido uga heshid dadkana ay faa'iidadaas iyadana ay u helaan dadka waxa kamida wasiilooyinku sheegay sheekhu in marka wax la aqriyo asxaabtaada yaani inaad raadsato asxaab wax akhriska jecel asxaab jecel mar walba inay hore isu wadaan asxaab jecel inay isbedel sameeyaan isbedel guud oo muslimiina u fikiraya kuwa naftooda u fikiraya kuwa usradooda u fikiraya kuwa magaalada joogan u fikiraya يعني ضد نوعاس أنت ترتبته إن هذا ولا أقردان وحي عاد أقردين إن هذا سلطة مادان تعلفت هذا وادي رجلين يعني وحقر سكينة وحيك وجوسه ما ينسى إنه قفكي سيج على عضو مركز شيخ وحيا بدن أو ساسو كلا أيو شيء وقضى نوعاسة ورنتي هذه لتحكي ليه أما قفكي يسكت ضيا إنه مالكي سيديين أو رقمه إنه كقولي سنكره وحقر سكنة ودبر أضيق كراي. أدبل ما صنت الأستاذ سؤال شخصي أدو قروح بدن أدو فافاسن ayaad noogu soo bandhigtay waxaan rajeynayaa in dhammaan laga faa'iideysan doono cid kasta oo barnaamijkan ku taxanaata ama buugan ba soo akhrida insha Allah su'aashan labaad haddii aan u nimaadno waa su'aashan labaad waxay leedahay akhriskii waan jeclaaday tusaale ahaan qodobadaas aan ku dhaqmay oo isticmaalay akhriskii waan jeclaaday xamaasad baa haysaa oo inaan wax akhriyaan raba maxaan akhriyaa waxaan akhriyayo muxuu noqonayaa بسم الله الرحمن الرحيم ان اوردرنتي واقيبته ugu muhiimsan markaad kitaabka qiimayso صح waxa sooranaysa dhalinyarta Soomaaliyeed gaar ahaan malaha qaybtaasi si gaarayba u taabanaysa oo boogti meesha ka muuqatay ba gacanta la saaray baa la oran karaa horta waxa su'aashan yani jawaabteeda qaybta koobaad waxay noqonaysaa saddex inuu qofku aqriyo صح oo ugu horeysiyo saddexdaas haduuna soo marin qofku inuu wax aqriyo ma baaha sababtoo waxa laga yaabaa inuu diintiisa ka baxo wax aqriskan waxa laga yaabaa qofka inuu aqriyo laga yaabaa yaani reer galbeedka mabaadiidooda haduu aqriyo diinta kristaanka hadda inta soo qaado oo aqriyo isagoon saddexdan aan cilmi u lahayn waxa laga yaabaa inuu diintiisa iskaga baxo marka saas darteed sheekhu saddex buu horta wuxuu u horeysiiyay waad saad sheegtay kitaab quraanka u horeysiiyay dhibaatana jirto waxaad arkaysaa qof dhalinyaro leh waxaan aqriyaa waxa aqriyo laakiin muxuu aqriyaa maalinka dhanna waxa laga yaabaa content page inuu ka tuuro laakiin waxa laga yaabaa sanad inuu ku soo wareegso kitaab quraanka aqriyo waa mushkilada dad badan oo wax aqriyo haysta aham shay oo qofka la rabo inuu aqriyo waxa ugu muhiimsan waxa weeye inuu qofku aqriyo quraanka si noloshiisa u noqoto nolol dhameystiran nolol yaani mar walba uu socdo cibaada ay ka muuqato alla ka cabsi ay ka muuqato wax walba uu qabanayana yaani si uu qabto maaragtay qof كتاب قرآن مر والباقرية وقف بالشدة قيمة كل حلة وهذا الكيس قيمة ليه ساس درت كتاب القرآن كان أخرس ولا مرة وحال رأى أخرس كان إنه نوضة أخرس تدبر أخرس أفير فيرسئة أخرس أدو حكي فايدة مثلا بو قال هذا أغريسو وحضو أغريسة سيادو حكي فايدة ساس درت كتاب القرآن وحال رأى مركا أغريسو إنه كاكتور طور ما هو ترى هذا وان دورة ياي إنه يعني أسأل لك تيجي عبادة كذا تو صلاة سو خشوع اللي بقوله هي هذا أسأل أنا أقول رادي سو خشوع يسوي رادي سي تاسوا ميدا كتاب قرآن كوانا دبته وين باكاه ستا دلير بدنا وحقرده هالكاس دلير ده وحنكون براروجين لها هالكاس آد وقفير سدان وأرين آد مهم وكتاب قرآن كأنا مالكي وبيران كان وحبا أقرينين إنه جزء مالك الله حاشيات إنه أقريه ونلا شيء سو كم من نقله تاس آد بمهمته وحكم إذا حديث الرسول أو يجا عاد شيخ وحولي المدة إن وحقرس كله قد دريمبه حديث الرسول الشيخ وحولي مالك هذا الحديث ما لا بحديث هذا غريضه نيكي حاس غير كلامه وحفيدي سابين كنت يسوي هالحديث يلا بحديث إنها جماعة خروج كالله ملايا يعني هالكاس آد وقفي عنها وأنا الرؤيا وقفي عن هذا أنا وحلم وذا منها شيء يجوز كليهن marka waxa la rabaa manhaj xayaati la sheegay weeyo yaani in noloshii reerku oo noolaa lagu soo dhaxdaro in maalin walba xadiis iyo laba xadiis laga aqriyo taasna sheekhu wuxuu tilmaamay in xadiista nabigu waxa ka aqriskooda ay aad muhiim u yihiin waxa la mid ah taas oo sheekhu ku sii daray culumta sharciga guud ahaan waa inuu isaguna qof wax ka aqriyo oo waliba qof culimo ah wax ka qaato culum sharciga marka la baranayo wax aqris iyaga lagu ma barto
oo da inta tafsiir soo qaadatay iska aqri maysid inta xadiis soo qaadatay iska aqri maysid fiqhi inta soo qaadatay af carabi aan aqaan ma oranaysid laakiin kuwa waxa la rabaa inaad ka qaadato sheekh oo halkaasi aad maaragtay aad cilmigaasi ka barato علوم waxaa kamid ah tafsiirka ruux tafsiirka muhiim ma aha inuu dhameeyo qasab ma aha laakiin qofku inuu kolka horeyso uu ka bilaabo mucaawadateynka suuratul faatiha qul a'uudu binaas qul suuradaha hoose uu ka bilaabo suuratul kahfi oo jumca walba la aqriyo qofku uu aqriyo suuratul yaasiin uu aqriyo yaani saa inta uu soo bilaabo tafsiirkana inuu bal isdhiso bal inuu tafsiirkiina isdhiso waa laga rabaa sidoo kale fiqhigi oo kale qofku inuu isdhiso kutubur raqaa'iq war ruuxiyad kutub la yiraahdo jirto kutubta dadka qulubtooda jilcisa baa iyaguna jirta oo qofka u fiican oo ka hadasha amrada ama cudurrada qalbiga ku dhaco oo maaragtay daaweynaya kutubta akhlaaqda qofka muslimka ah ka hadlaysa kutubta islaamta iyo ama dumarka iyo islaamku sida uu arko ayaguna aad muhiim u ah galbeedka mudaanay boonboonin ku wadaanba يعني دكتور إسلام أو بدن با وحكا قري أو دينتي تفسير بدن إيو يعني قيحيد بدن كسمية إسلامتا أما بقفت دمر كاي دينت إسلام كسيدة وأرتيه قيمة هي سيسي تانا إنه قفكو أقريات بي مهم وتاي مركا سؤال هذا أنت أصلا كسو كوبي لها وحي كلنا دلنيرت إياها كله كقدر سنتون سان في الله أستاذ بدن ما سنتهاي وقت آدنو ريان يا أودد سؤالنا السعادة أنكو سبحان الله رنتي هل قضبة وقلا كبر رجلها دلنيرة ضد بدن وحاجر القرآن كآخره لكن أنا سكوها السنين إن دad wax akhriyin oo faraha hada tira war maxaa wax ma akhridaa wax la maalinka inuu shadu akhriyo laakiin hada tira wax ma akhridaa inuu kula laga yaabaan wax ma akhriyo marka halka lifta waxaan leeyahay quraanku waa sida walaalkeen noo sheegay iyo ustaadku waa kaalinta koobaad su'aasheena saddexaad waxaan noqonaysaa waana gaar ahaan waxaan ku socotaa aad u xusaysaa dadka ma wax barta aqoonyahanka ah waxa jira majaalo ay bartaan oo fiildiya ayaa jaamacadaha jira ustaadku fiildigaas oo kale ayuu soo qaadanaya uu leeyahay ruuxu shayga uu bartay gaar ahaan inuu akhriyo sida ayna sheegan adduunka maanta macluumaad badan oo maalin walba cusub ku soo kordhaya sida dirta majaalkiisa inuu bal ruuxara takhasuska inuu akhriyo halka oo majaalo badan iyo lifta hoos imaanayaan bal halkaana iyadana insha Allah su'aashaana su'aashaasi waa su'aal aad muhiim oo gaar ahaan ku socota ardayda jaamacadaha dhigata dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah yaani fildigu soo baranaya fildigu soo bartay يعني أنتوا جامعة كتير حلقة يا بين وبرت إكزام كي امتحان كي واحد درتي كل كي قادو إنه قلنا شبينا ولقي قدام بفل جالسين ونديبوا أقرين تاس مركا وقت ما دام العليا هي وحان قتل معاملها إن حتى قفك يعني نية سان هراك شغلة إن نية قفك حرام تيوادين نية وحن وأجر كهلا إنه ضدك مسلمين تاي ودن كيس كوار مريء مركا في اللي يدا ضدك سدليار تقف ولا بوحي أصابرت إنه هرمرين كسمايو oo mar walba wax ka aqriyo xataa haduu qalin jabiye uu raadsado waxa uu soo bartay buugaa ka hadlaysa oo jaamacada ama hay'adlaan ama kuwa kale dheer uu soo iibsaday ha noqdaan inuu qofku filligaasna uu soo bartay uu aad ugu sii takhasusna maanta waa loo baahan yahay waxyaabaha dadku maanta adduunka aadka looga baahan yahay waa takhasuska cid wax walba taqaan ma jirto marka qofku wuxuu ku takhasusay ee uu soo bartay ama shariica ha noqoto ama cilmiga maadiga ha noqotee inuu qofku waqti ku bixiyo taa lafteedu kulli aad bay muhiim u tahay waxaa majaalada sheekh sheegay kamida majaalka la yiraahdo dhanka xagga taariikhda majaalka taariikhda aad buu muhiim u yahay qofku aduna taariikhdiisa barana maanta adduunka la joogo khadku ka baxaya qof wuxuu noqonayaa aan lahayn taariikh qof aan qiimo lahayn buu noqonayaa armeniyankii madaxweyne Biden markii dhaweyd uu barigi dhaweyd ka hadlayay walaha waxaan u aqoonsanaynaa in halka xuquuqul insaan lagu xadgudbay dad halka lagu laayay oo dhibaato loo geystay yaani waxay dawladda Cusmaaniyiinta adduunku taariikh baa la isku haystaa waxaan yar la istusay ee kale xagga hore iyadu waa iska siyaasad laakiin nin walba dawlad walba kulliga dib u noqoto waxa librarigeeda u yaala taariikh weyn saasarteed dhalinyarada muslimiinta ah inay taariikhda islaamka ay aqriyaan oo ay wax badan ku ogaadaan taasina aad bay muhiim u tahay waxa kamid ah majaalada uu sheekhu sheegay oo iyaguna meesha ku jiro waxa kamid ah majaalka la yiraahdo qiraa'atu ra'yi al-akhar kolku qofku taariikhdiisa wax ka soo ogaado xadiiskii nabiga iyo shariicadii iyo quraanka wax badan soo waa qof dhisan wuxuu awoodaa inuu aqriyo dadka ka fikir duwan inuu kutubtooda aqriyo diinta kristaanka inuu aqriyo isagoo diintiisa ka dhisan laakiin haddii diintaada ka dhisnay wax ma aqri kartid sadarteed bu sheekhu kuwaana ugu horeysiyay waana meelaha wax laga aqriyo ka mid tahay ruuxa looga baahan yahay wax ka aqriyo shardigu laakiin waa inuu ruuxu uu ka dhisan yahay intaas majaal kale oo sheekhu ku sii daray aadka muhiimka oo ay u baahan wax xalaqo gaar ah lagu bixiyo waa majaalka tarbiyada ciyaalka in wax laga barto dadkan ciyaalka waa la garaacaa quraankii buu diiday webta baa laga saaray iskoolkii buu diiday webta baa laga saaray yaani maanta waxa wax laga baaraa oo dabeecadooda looga xayawaanad wax laga ogaada xayawaan baa looga soo dhaqmo
xayawaan baa la ogaadaa inta uu nool yahay muddadu nool yahay baa la qiyaasaa oo la yiraahdo xayawaankaas inta uu nool yahay qofkii bini'aadamka miyuuna xaq u lahayn in la ogaado sidoo u dhaqmaa sidaas loola dhaqmi karayo arrin aad muhiim ah ciyaalka yararka in la yiraahdo cilmiga ku saabsan ciyaalka see loola dhaqmaa see loo tarbiyeeyaa aad bay muhiim tahay kutub aad muhiim ah oo Cabdikariim Bakaar doctor la yiraahdo oo Suuri ah uu waxeeyo dadka kuba filan ba ayaga haday aqriyaan baa jirta waxa kamid kitaabkiisu yiraahdo taasiisu aqliyati tifli yani qofka ilmaha yarka ah sidee aqligiisa loo dhisaa waa kitaab aad muhiim ah oo 169 page oo aad dadka muhiim waa gaar ahaan dadka waalidka ah waxa kamid ah kitaabka al-qawaa'id al-10 fi tarbiyat al-abna 10 qaacido oo uu doctorku sheegayo carruurta qaabkii loo tarbiyeyn lahaa waa 120 page weeye isaguna waxa kamid ah kitaabka la yiraahdo al-muraahiq يعني قفك مراهق حنيه جديد سبيس Soomaalidu taqaana sidee loola dhaqmi karaya inaga dhowr iyo 10 jir ruux markuu gaaro madaxa taagu iskoolkii diido quraankii diido webta un baa laga saar qofkaasi waa marxalo diinta islaamkuna ay ogoshahay weeyo qofka si gaar ah in loola dhaqmo yaridii uu ka gudbiyaa weynidii uu gudbiyaa waa marxalo u baahan in lala socdo kitaabkuna waxa weeye aad buu uga hadlayaa sheekhu waa 161 page oo waa kitaab aad muhiim u ah oo kaba hadlaya sidee loo fahmi karaya qofka dhowr iyo 10 jirka gaaray Soomaalidu u taqaan xiniyo guduudis oo yaraantiina ka sii baxaya weynaantiina aan wali gaarin waa kitaab aad isaguna kulli muhiim u ah waxa kale oo kamida طفل يقرأ oo kitaab la yiraahdo يعني ilmo yar oo wax aqriyo ciyaalkii wuxuu ku dhiirigelinayaa say wax u aqriyaan say loo tarbiyeynaya oo iyada lafteeda ka hadlayo waxa kamid ah kitaabku qoray mushkilatul atfal oo ciyaalka iyo dhibaatooyinkooda iyo waalidka soo u xalinaya mushkiladaha ciyaalka iyo waalid soo xalinaya waa 154 page waa arrin aad muhiim u ah sheekhaas kutubtiisa hadii lagu taxmo oo la akhriyo oo la tarjumo oo waalidiinta la soo gaarsiiyo kulli wax badan baa la xalin karaya waxa ku soo koobi lahaa majaalka u dambeeyo ah majaalka la yiraahdo at-tarwiixi yani qofku inuu iska yar nasto diinta way ogoshahay oo uu siyaax taga ama dalxiis oo kale uu tago yani waxay diintu ogoshahay weeyii saas darteed xataa wax akhriska qof waxyaabo u xiisay qof laga yaabaa inuu xiiseeyo taariikhaha oo kale yani waxaas inuu isaga laftiisu qof laga yaabaa inuu iska xiiseeyo kubadda oo kale diinta islaamku ma diidayso inuu marmarka qaar qofku wixii uu xiiseynay inuu ku nasto oo wax akhris ahaan mid baa laga yaabaa inuu warka uu xiiseeyo ده وركي مالي والبا إنه كنت أجناده وقت إسكاجا بحية ما فيعنه لكن ما دام وحي حسية يلا لفتين وحكا عقريه بقف في اللوجو بهاي هاي مركب متشال بدن بيتشرب كتابكم واحد بدن بقى الله يا أو وقت يقول سامح حينين لكن وشدد عن كلام هاي وأنا اللي يرتا إن ير أو كوبان وكأنه سي أي كونسبت ير وقعتان كي عقري كره عربي جنا وقف يدستو كي كلامنا بلد مغالطة وحي أنكريني أكسو جد بني إنه يجا كف يدستو مركب إن شاء الله أنت هسمكسو كوبلها أسأل بعض الناس أستاذ وقت جوال لبس أو هذه النوع يوجد برنامج كان أنت كل بدونه وحنا لنا هاي سداسيو نبي كليه